Det gjøres klart for frokost hos familien Christensen. Med rester. wariyaha lagu magacaabo Kristin Salzman ayaa waxa uu ku booqday gurigooda gabadha Yasmin iyo ninkeeda Kristen iyo 3 caruur ah oo ay dhaleen. ujeedada ay u soo booqatay ayaa waxay ahayd maadaama dawladda Norway ay dhawaan doonayso inay waddanka ka saarto gabadha Yasmin oo halkaas ku noolay muddo 14 sano ah. Yasmin ayaa sheekadan waxay ku tilmaamtay mid ah cadaalad darro sharcigana ka fog. waxayna sheegtay inay tahay Soomaali aysan ahayn qof Jabuutiyaan ah. Staten vil bare kaste meg ut av landet. Og jeg føler meg veldig at de hadde behandlet meg som dhanka kale Kristen oo ah odaga qaba gabadha Yasmin isla markaana ah aabbaha 3 caruurta ah ayaa waxa uu saxaafaddu u sheegay in dawladda Norway ay ula dhaqantay xaaskiisa sida qof dambiile ah oo kale isla markaana ay doonayso inay bannaanka uga saarto caruurteeda kalena fogeyso ayada iyo ilmaheeda. taasina ma ahan wax ku salaysan aqliga bini'aadamka saliimka ah ayuu yidhi. Det er jo hjerterått. Hun ble, som hun sier, hun blir jo behandlet som en kriminell. Og selv de færreste blir jo kastet ut og mister statsborgerskapet. Så hun er jo til de grader straffet for den løgnen hun i sin tid kom med. Det er vondt å beskrive hvordan det føles, men det føles fryktelig tungt. run ahaantii dawladda Norway waxa ay masaafurisay ama ay sharciga kala laabatay dad aad u fara badan kuwaasoo qaarkood aysan helin amaba inta badanba aysan saxaafaddu ka hadlin, balse familkan ayaa waxaa u soo gurmaday saxaafadda iyo weliba hogaamiyaasha degmooyinka. hogaamiyaha degmada ama kamuunka Lyngdal ayaa waxa uu yidhi tani ma ahan wax la aqbali karo, waa mid jibinayso sharciga, waa mid kala burburinayso famil, waa mid kala fogeynayso hooyo iyo ilmaheed, mana ahan wax la aqbali karo. Noe som skjedde for 16 år siden. Hun var 18 år gammel. Skal det få så fatale konsekvenser at hun blir utvist i dag? Det mener jeg er galt. Det er å separere en familie. Det er jo å ødelegge en familie. dadka Soomaalida ee qurbaha qaarkood ayaa waxa ay dhex galaan dadka caddaanka ah. qaarkood ayaa qoysas la samaysto, balse inta badan dadkaasi dhex galo caddaanka ayaa waxay bilaabaan inkiraad, waxayna noqdaan sida baqashii la daaqday fardaha. waxay bilaabaan ku jeesjees iyo aflagaado ka dhan ah Soomaalida, waxayna isku haystaan inay yihiin dad waddanka iskale amaba ay yihiin dad caddaan ah. balse runta ayaa waxay tahay sharciga waa loo wada siman yahay, qof walibana waxaa lagu tixgeliyaa dhalashadiisa iyo halka uu ka soo jeedo. Yasmin ayaa waxa ay Facebookgeeda ku soo qortay inaysan ahayn qof Soomaali ah, isla markaana waxaa taasi ay bilowday in dawladda Norway ay dib u raacdo baaritaan ay ku samayso dhalashada gabadhan Yasmin, taasoo markii dambe lagu soo ogaaday inay tahay qof Jabuutiyaan ah. ayaa waxa ay dawladda Norway go'aan ku qaadatay in dib loola laabto sharciga la siiyey gabadha. Yasmin oo muruga ka muuqato ayaa waxa ay saxaafadda dalka Norway u sheegtay inay aad uga xun tahay dhacdadan, isla markaana aysan noolaa karin ilmaheeda la'aanteed. 1 daqiiqaba ha noqotee ama 1 second. Blir du satt til 2 år? Aldri leve uten mine barn i 1 sekund. Mamma, kan vi ta på skolen? Dette er mitt liv.